kulanti kale oo wanaagsan walaalayaal, waxaan muuqaalkeenan maanta idinkula wadaagi doonaa hadduu eebbaha awoodda la raalli ka ahaado fursadaha caalamka ka jira ee aan ka soo warrami jirnay, fursadihii shakhsiyan aan ku guulaystay, ha ahaadaan online ama ha ahaato full scholarship ama deeq waxbarasho dhammaystiran, ama ha ahaato waxa loo yaqaano fellowshipka oo ah fursad waxbarasho laakiin sanad ama 2 sano aan ka badan, qaarkoodna bil, asbuuc iyo wixii la mid ay tahay. waxaan arrinka noocaas u sameynayaa waxaa jira akhyaar nagu taxan, ilaahay khayr ha siiye, oo aaminsan in barnaamijyadan laga warramayo ee fursadaha caalamka ka jira noocay doonaanba ha ahaadaane inay yihiin wax khayaali oo haba yaraatee wax ka jira aysan jirin. taasina laga yaabo qofkan inay u horseeday ama habka uu aaminay ay sabab u tahay xaalado asaga gaar u ah oo uu la kulmay. waxaan tusaalaha ka wadaa walaalayaal, dadka qaar ka mid waxaa dhacda in fursadaha caalamka ka jira ama fursadaha dalka gudihiisa ka jira in uu mar iyo 2 iyo 3 iyo 4 isku dayo, hase yeeshee uu ku hungoobo ama uu ku guuldaraysto. taasina ay horseedo in uu qofkii hanjabo. hase yeeshee astaamaha noocaas waa astaamaha la rabo qofka hanka leh gebi ahaanba inuu ka fogaado, waayo marnabaha filanin adoo jiifa inta mir lagu soo gooyo afka in lagu geliyo. bimacnaa wixii aad raadinaysay, hankii aad rabtay inaad xaqiijisid, adigoo aanan rafaadin, adigoona kufin oo aanan kicin, adigoo aanan guuldaro la kulmin, marnaba ma dhacayso inaad heshid. saa daraaddeed waxaa muhiim qasabna in markii aad han rabtid inaad xaqiijisid, hankaasina agtaada wax weyn uu ku yahay in dulqaadka daris aad la noqotid. saa daraaddeed barnaamijyada aan ka waramayna ee aan marar badan ka warranay, dadka qaar ka mid maadaama ay aamineen inay khayaali tahay oo waxyaalo uun laga sheekeeyo ay tahay, ayaa waxaan ku go'aansaday inaan muuqaalkan idinku tuso shakhsiyan barnaamijyadii aan ablaygareeyey ee kumanaanka kun ee qof ee caalamka ka mid ama Afrika ha ahaato ama Asia ha ahaato ama Yurub ha ahaato ama America ama Canada ha ahaatee, aan intaan la loolamay aan shakhsiyan ku guulaystay. qaarkoodna run ahaantii markaad aragtaan aad la yaabi doontaan. waxaan ka bilaabayaa marka barnaamijkan hadda ugu horeeya shaashada idinka muuqda. barnaamijkan waxaa lagu qabanayay dalka Australia, gaar ahaan sida shaashada idinka muuqata magaalada Sydney. waa isla sanadkan 2025. haddaba fariintan waxaa la ii soo diray sida shaashada idinka muuqataba bishii Maarso 7 sanadkan hadda aan ku jirno 2025, taasoo muujinaysa sida shaashada idinka muuqataba in laygu hambalyeynayo inaan ku guulaystay in barnaamijkan aan ku soo baxo. haddaba barnaamijkani muxuu yahay? marka koowaad wuxuu ka dhacayay dalka Australia, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Sydney, wuxuuna ahaa self funded adaa ismaal gelinaya. bimacnaa barnaamijka waxaad kaga qayb qaadanaysid, ama ha ahaato tigid ama fiisaha soo jaranaysid ha ahaato, waxaasoo dhan adaa isu qabaya hoteelka aad degaysid iyo barnaamijyada ka qayb qaadashadooda. keliya waxay barnaamijka cidda diyaarinaysa keliya iyagoo ay ku damaanad qaadayeen in ay kuu soo diraan invitationkii barnaamijka aad uga qayb geli lahayd. haddaba barnaamijkan wuxuu dhacayay 24 bisha June ilaa iyo wuxuu soconayay 27 isla sanadkan 2025, waana la soo dhaafay. habku ahaa goortaan ka soo laabtay, goortii aan aaday, sifooyinkii aan u maray, barnaamijyada kale ayaan idinkaga warrami doonaa. kaasi waa barnaamijka koowaad. barnaamijka labaad wuxuu yahay waa barnaamijkan isaguna Turkiga ka dhacayay. waxaa fariintii inaan ku guulaystay la ii soo diray isla January ama bishii koobaad 27 isla sanadkan 2025. haddaba barnaamijkan wuxuu kii hore kaga duwanaa maadaama full self funded oo ahaa, anaa iska bixinaya kaas gebi ahaanba. kan laakiin waa partial. lacagta guud ee barnaamijkan looga qayb qaadanayay waxay ahayd $799 oo lacagta Mareykanka hase yeeshee maadaama partial la iga dhigay, waxaa la yiri waxaa laga rabaa kaliya $479. lacagtaas ayaana barnaamijka kaga qayb qaadanayay. wuxuu dhacayay barnaamijkani isla bishii 2 ee February ama bisha Febraayo isla sanadkan hadda aan ku jirno, wuxuuna ka dhacayay cariga dalka Turkiga ka dhacayay, gaar ahaan magaalada Ankara ka dhacayay. habkii uu ahaa
fursadihii halkaa ka jiray sida barnaamijka aan uga qayb qaatay iyo saan ugu guuleystay barnaamijyo kale ayaan kaga warrami doonaa. taasina waa fursadii labaad ee aan ku guuleystay isla sanadkan 2025. barnaamijka saddexaad ee aan ku guuleystay wuxuu ahaa ee caalamkaas anoo la loolamaya la challenge garaynaya aan fursadayda iyo nasiibkayga aan tijaabiyey anoo khibradayda iyo aqoontayda isticmaalaya ayaa waxay ahayd barnaamij ka dhacayay dalka Canada isla sanadkan 2025 gaar ahaan bishan hadda aan ku jirnay August 5teedii wuxuuna dhamaaday isla 8 bishan ee hadda aan ku jirnay August. haddana waa maxay waa 17ka bisha August. waad garan kartaan inta ka soo wareegtay. haddaba barnaamijkan wuxuu ka dhacayay isla magaalada Toronto ka dhacayay ee dalka Canada wuxuuna ahaa asaguna self funded. gabi ahaan lacagta ku baxaysa barnaamijkan anaa iska bixinayay oo wax haba yaraatee ciidan iyo casuuntay iyo barnaamijkan ka qayb qaadanaya haba yaraatee wax shuqul ah ma aysan ku lahayn. haddaba fariintan ah inaan barnaamijkan la ii doortay oo aan qayb ka noqon doono dadkan ka qayb qaadan doona sida shaashada ka muuqata waxaa la ii soo diray isla bishii Maarso 15keedii sanadkan hadda aan ku jirno ee 2025 saacadu marka ahayd 7:31 fiidnimo. kaasina wuxuu ahaa barnaamijkii saddexaad ee aan ku guuleystay anoo caalamka la loolamaya. barnaamijka shanaad ee isagana aan ku guuleystay ayaa asna wuxuu yahay walaalayaal barnaamij kale oo ka dhacay dalka Ingiriiska laakiin hay'ado Afrika laga leeyahay ay hogaaminayeen oo iyagu ay maamulayeen. haddaba lacagta guud ee barnaamijkan la yiri waad kaga qayb qaadanaysaa ogowna waa fellowship waasna waa 2 sano ama sanad iyo bar buu soconaya. lacagta guud ee la yiri waa kaga qayb qaadanaysaa ee la yiri waa laga rabaa waa lacagtan shaashada idinka muuqata waa 31,600 oo lacagta Mareykanka ah. waa lacagta guud ee laga rabay. hase yeeshee waxay dhaheen discount baa lagu sameeyaa u dhigma 25% sida shaashada idinka muuqata. way calculate gareeyeen adigu waqti dheer ku lumin maynay gabagabadii laakiin gabagabadii waxaa laga rabaa baa la yiri lacagta shaashada idinka muuqata oo ah 23,700 oo dollar. waa lacagta barnaamijka fellowshipka ah aan uga qayb qaadanaya. sababna ay u tahay inaan horta markii hore processkii koowaad ka soo gudbay oo ah inaan horta ku guuleystay malaayiintii qof ee caalamka ka kala socotay ee barnaamijkan ka qayb qaadanaysay soo codsatay inaan ka mid ahaa dadkii ku guuleystay. kaasina waa mid kale. barnaamijka marka halka oo gudbo walaalayaal kuwa aan ku guuleystay ayaa waxaan u gudbayaa kuwa la idiiday. barnaamijyada kamidka ah ee run ahaantii aan tirin karo inkastoo aad ay u badan yihiin oo had muuqaalkan aan ku soo wada qaadan karin ayaa barnaamijyadii ugu muhiimsanaa ee la iga diiday waxaa kamid ahaa barnaamijka halkan idinka muuqda. barnaamijkan iLead Fellowship ayaa la yiraahdaa waxaa maamula institutiono Afrika laga leeyahay gaar ahaan badankooda waxay u badan yihiin dalka Kenya ay xarun ku leeyihiin leadershipka ayuuna la xiriiraa. haddaba barnaamijkan waxaa la ii sheegay in aan muxuu ahaayay aan la iqaadanin isla markaana aan ka mid ahayn dadkii la doortay sida haddaba shaashada idinka muuqata. laakiin fursad aan u heli karo in sanadaha dambe haddii fursadan ay soo baxdo inaan ka qayb qaadan karo. fariintan waxaa la ii soo diray 10 beri ka hor kaliya waana 7 August sanadkan hadda aan ku jirnay 2025. hagaag haddaba waxaan fariimaha walaalayaal idin tusayaa waxay tahay horta fikradda qusacbalaadka ah ee khayaaliga ah ee dadka qaar ka dhaadhacsan ee ah fursadaha caalamku waa khayaali horta maankooda inaan ka saaro waa midda koowaad. midda labaad fikradda kale ee quusashada ah ee labaad inaan iyadana ka saaro oo ah in caalamka kale haddii in case aad Soomaaliya xataa joogtid in aysan ka dhaadhicin inaad ka qayb qaadan karin. waxaan ku hubaa aamintidna in adoo Soomaaliya jooga oo waliba baasaboor Soomaali wata in kuwa Mareykanka jooga inta la diido iyo Yurub in adi lagu qaadan karo. laakiin waa goorma waa marka koowaad adoo aad aamintid aqoontii waxaan aad ku loolamaysidna aad yeelatid. waa qodobka labaad. qodobka saddexaad ee raba inaan maskaxdiina ka saara ayadana waxay tahay walaalayaal xaqiiqdana la raba inaad ku taabataan in mar iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 haddii lagu diido inaadan u fasiranin inaad tahay qof nasiib xun. inaadan u fasiranin in dadaalkii laga rabay aad muujisid oo aad gaadhay goortii aad hanjabi lahayd goortii aad isdhiibi lahayd. maya 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 dadka run ahaantii caalamka wax ka gaaray kuwa ku qiimeeyay dadaalkooda ma aha mar iyo 2 iyo 3 iyo 4 inay guul daraystaan balse waa kuwa mar kastaba u taagan in aysan isdhiibin ilaa markii dambe guushii ay rabeen ay hantiyeen.